غير شربت لما أنت وحن سمية لبن نيف أري يو هاف أو جح يعني نيف هاف كيس عندها أو وكل سمية دلنير هل كان كونه شيء فاميلي تجمعوية فاميلي أنا وجينا برتو ده on maaragtay ku siinaya halkooda oo maaragtay meel qurux badan ay fadhiyaan oo ku samareysanayaan oo doog ah oo cagaar ah runtii halkaas ayaan anigana maaragtay u saaray neefkoodii ma sha Allah fantastic aha marka asxaabta qaaliga meesha quruxda badan aan neefka ariga maaragtay ugu geeyo familiga ila daawada insha Allah neefka ma sha Allah soo arkaysan wuu fadhiyaa sida geel ah oo kale u fadhiyaa carruurta kale iskaga baashaaleen familigan family qurux badan ma sha Allah halkan ayaa lagu sameeysanayaa inaba caadi ma ahan maanta waa haween neefkan waa si fiican ugu soo laba xabo digaag ah ka saaran ma sha Allah qaar tirada ma sha Allah jeexan waa VIP dhalinyaro maaragtay asxaabta maaragtay soo gaadhay marka waxaan u sameeyay jeex neef jeexiisa inaba caadi ma ahan waa VIP asxaabta maxalliin ما شاء الله قالوا كريم ما سنتين حقيقة ماشي أنا بصدق كيسان وميل قرف بدن وميل دوق وميل مارتي فاميل كلو سو كحين كرو marka san hore idinka balan qaado waxaan baryaynaa meelaha maaragtay ramadaankii hore sida loo gari leesto banaanada loo gariyo sida familka loo soo wada bixiyo waalidiinta loo soo bixiyo walaalaha loo soo bixiyo carruurta loo soo bixiyo loo keeno meelaha banaanka oo kala maanta ilaahay maqaadirtiisa ay ku dhacday ma sha Allah familka famil aad u qurux badan waaye halkan waxaan ku diyaarinayaa hadda tan waa labadii neef iyo haafkii oo arig ahay oo maanta ciida aan ugu talagalay laba family ayaa kala dalbaday labada neef dhalinyarana waxay dalbadeen neefka haafkiisa oo maaragtay faraha ay ku cunaan ma sha Allah way ka sheekeeyeen maanta waxay dhaheen chef maad ilaahay gacantaada ha barakeeyo yani si fiican baad u sameysay marka insha Allah bidnillahi alkareem maxay ahayd wala hadda waxaan kala tusayaa sida aan maaragtay neef u fadhiisanayo iyo qaabka aan neef u fadhiisanayo hadda kala tusay insha Allah baalada madow horta arkaysaan waxa weeyaan waa baahla cuntada kuleelkeeda maaragtay noo haynayo waxaad ka soo dalban kartaan cunadan waa Juba Restaurant Stockholm kala Husby ay ku taala maxay ahayd wala bartadan kugu keenana cunada anigoo chefka waliba la socdo cunada oo maaragtay neefka ariga noo dulwaana yani neefka ariga noo la socdo oo maaragtay saxanka ku saarayo oo ku habaynayo ayaa maaragtay hadana mashquul badan ahayn oo markaas Janis ku helo soo raacaya amara mashquul ahaan jirto yani howlooyin badan kale isugu tagan way cuntooyin kale fara badan sameeynayo marka wax laga yaabo maaragtay Janis ku weyno marka insha Allah bidnillahi alkareem hadda waxaan sameynayaa baradhadii iyo basashii aan shiilay ayaan maaragtay geesaha ugu wareejinaya ka bacdi laba xabo oo digaag bisil buu wataa neefkan oo dhinacayda aan ka saarayo ما شاء الله ما أنت كلال في عنا جرب معناها آد بالله سمرة سنة عيدي وكلال كي أسكسو آدي ومعناها والحمد لله بالله قد قدنا أركيسان وحوا ناف بكوسو كلية هو معرفتي وأنا كعندكم من قبل كرو وأنا واحد يوم معرفتي وهرين كوس بالله عندنا نقول إنه بحلا أنتذا آد يعني جيدها من وجيدة يعني أنتذا كلال كده هنا وذاك سوقيق وصباح يا ما شاء الله ناف قيق سوق كلية ما شاء الله تبارك الله إن بعد ما هذا الدجاجي أيام صبحني على بحبه two full chicken أيام بنانكو صبحنا يا صدر كيسان نافك عند مانتي آد وبسيدي هي يعني لو يقف فكتان دي دنا هاي سفي عم بانو قاضي ما شاء الله ونطور ساريا بريسكي آد وبسيدي نافك يعني و يعني لفتي هليبكا كala dhacay macnaha soo dhayla ah ayaa maaragtay si fiican u bisleeyay soo macaan hadana macaanka spiceskiisa wixii soo si fiican u dhuuqay marka hadda waa fadhiisinaya lugaha ayaa u laabaya oo maaragtay inuu si fiican u fadhiisto ayaa maaragtay rabaa lugta saas u laabaya lugta kale u laabaya hadana waxaan fadhiisiyaa hadda soo aragtay isku tusiya isaga dhanba uu fadhiya hadda waxa la geel yariis oo fadhiya ama niyadii hadaan gaamiya kidogo
maasha allah waad arkaysaa sidii buskudkii oo kale waa uu kala dardaadanaya hilibku bisil yahay xaqiiqad. asxaabta arkaysaa maasha allah hilibka aad u bisil yahay waa sidii buskudkii familigan quruxda badan halkaasay fadhiyaan saad arkaysaan maasha allah beautiful family. marka asxaabta maasha allah waad arkaysaa neef waxaan coosaaba ka dulbaxayaba marka aniga mararka qaar waxaan sameeyaa neef madaxiisa ku yaala coos af ugu jiro ookiyaalna aan geliyo marka decorationka waxaa waa sheefku sameysan karaa inaba caadi maahan. waan sameyn doonaa insha allah neef sidiisu fadhiyo oo maaragtay ookiyaal wato oo coosna af ku wato insha allah. waxaad nagala soo xiriiri kartaan asxaabta qaaliga Jubba Restaurant Stockholm haddaad u baahan tahay neefka ariga in maaragtay lagu sameeyo oo fadhigaaga lagugu keeno. asxaabta qaaliga aad iyo aad ay ugu mahadsan tahay videogan daawashadiisa. next video waxaan rajeynayaa caafimaad iyo maaragtay iyo insha allah reynba. marka waxaan leeyahay videogan sii share gareeya asxaabtiin kalena la sii wadaaga. عيد ونكسن دمانتين با كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.